12 bisha Mawlid waa xilliga uu dhashay nabigeena nabadeena xariis korkiisa aatee waxaana lagu qabtay caalamka islaamka waxaana kamid ah meelaha lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaana lagu qabtay xalay masjidka Sheekh Cabdi oo kamid ah masaajidda magaalada Dhuusamareeb waxaana ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeyntii waxa halkaas ka soo jeediyay siirada nabigeena nabadeena xariis korkiisa aatee culimadii ka soo qayb gashay munaasabada xuska walaalayaal رسول الله محمد الأويني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا ليال رسولك عليه الصلاة والسلام لولاه ما اهتدينا حديثنا سقاهن مينا هنونين إلهي بأنه سودي بي رسالة كتابك قرآن كهن سودي بي إيو حديث القدس إيو وحي محانكو إلى هذا خيراته ربا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ودل حقا إيات كهنون نيسا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الله عررك إيادولك إياكونك دمانتي أبوري ملكا وخلقا وعبيدا أولها سبحانه الله وددي سبت كهنون نيسا بير إلهي الحمد لله عمل الكلام ما كان يقول وعلم الإنسان يتكون الشيئين أو الإنسان يتكون بجانبين الإنسان يتكون مع الوجه وقرر ما قيام ظاهر وقيام باطن أخبر الله اليوم أمة المسلمين dhalinyarada ka soo qayb gashay ayaa iyaguna halkaas ka soo jeediyay nashiidooyin nabi amaan ah يا رسول الله غوثنا عاجلا يا رسول الله غوثنا عاجلا فعظيم الغلب بنا نزلا صل يا ربي على المختار ما صل يا ربي على المختار ما صل يا ربي على المختار ما بلغ الرحمن عبدا ugu dambeyntii waxaa hambalyo u diray ummadda Soomaaliyeed wasiirka diinta iyo cuqaafta Galmudug Cabdishakuur Macalin Ciise Albadri oo munaasabada ka soo qayb galay inaan iraahdo dhammaan muslimiinta u arkaya sida ay arkayaan dadka caashiqa
leh dareenka iyo rabitaanka iyo xasuusta dunida ay ku jirto ee ay qabaan Muhammad calayhi salaatu wasalaam inaan yiraahdo ifraxu maca wilaayati Muhammad sallallahu alayhi wasallam nugla farxa dhalashada nabi Muhammad فاقبلوا منا أفضل الهدي هديته فضل وبركة وضع ولاية محمد صلى الله عليه وسلم عبرنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويلي أدلياته سبق وقته مناصرة عالم الإسلام وضمه كما فرتون محمود أحمد فرتون فلسن صومالي كابل تي في لوسمريب